si aad iyo aad u ballaaran ayaa munaasabada 18 May maanta looga xusay magaalada Boorama waxaanay ku soo beegantay maanta sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland madax bannaanideeda la soo noqotay waxa ka qayb qaatay dadweynihii ugu tirada badnaa ee magaalada Boorama iyagu isugu soo baxa dabaaldeg noocan oo kala ah oo ka dhaca magaalada Boorama dadka ayaa iyaga oo u socda qaybaha ay magaaladu ka kooban tahay shaqaalaha dawladda kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay ardayda dugsiyada dhigta kuwa jaamacadaha ciidamada militariga kuwa booliska kuwa asluubta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyaga oo koox u socda waxa ay ku soo urureen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Boorama halkaasi oo ay markaasi ciidamada kala duwan ee qaranku iyagu ay markaasi salaan sharaf ay ku siinayeen madaxdii iyagu madasha halkaasi ka soo qayb gashay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay wasiirka beeraha ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedole iyo marti sharaf kale oo fara oo ay ka mid ahayd marwada madaxweyne ku-xigeenka marwo Raxma Xaaji Maxamed Suldaan badan ayaa halkaasi iyagu salaantaasi kaga qaadanayay xafladani ayaa iyada waxa lagu tilmaamay inay ahayd mid qaabka loo soo abaabulay iyo sida loo sameeyay ay ahayd mid aad iyo aad u heer sareysay waxaana ay mas'uuliyiintii dawladda ee halkaasi ka hadashay oo uu ka mid ahaa duqa magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdalla iyo wasiirka beeraha ee Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedole ay hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyeen kadib markii ay muddo fara badan dadku ciyaaraha iyo damaashaadka ay isku darayeen ay noqotay cadeedu in ay kululaato إلهينا وحكبرينا مدام عندكم كل شيء ووقت بدل إيمان يسنين إنه سنة كسنة كيسة إنه قاسي عقاد يا الهدف نبتدينا ونفدمرها نوشينا ونفدمرها نوشينا وأين ندورنا وحبسوا وين يا أي مكان وحبسوا وين يا نور يا له موسي ما كان هذا مين سما صوب شيء مين سما صوب شيء إلهيكم هذا الله يتوقفني ومالنتي ومالني يمغال من يوم الله وقاله بشهر الله صوتمه سيدي يتوقفني ومالنتي وقام في دولي وستاعي سيدي الله ما يحسن مالي الله الدنيا وماليه مقصود أول ولا غير سيدي يتوقفني إلهي ولا يستعي إذا مرجمك عدالتكم عمره من لماذا يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبانا هلا وطور صبانا فيصل عمو صبانا هلا قوسوا صبانا هلا قوسوا صبانا نحن وليسكو وطور محن ولانن وطور محن ولانن صبانا محن ولانن صبانا قرم محن ولانن ومعرفة قرنما Somaliland وحواليا maanta oo ay tahay maalin shacabka Soomaaliland meel ka taajooyay oo cod dheer caalamka u sheegay in la aqoonsado in la ictiraafo Soomaaliland la aqoonsado maanta way nabaatan jirtay Soomaaliland waxaan leenahay Soomaaliland la aqoonsado la aqoonsado codkaas waa codkii shacabka Soomaaliland magaalada Boorama maanta joogno waxaan uga mahadcelinayaa sida fiican ay uga soo qayb gashay ay u ajiibtay inay ka qayb qaato dabaaldega 18 May wixii khudbada ah waxaad mudaacaad baan joognaa caawaaya haddii aan u dhiganay halkan waxaa idinka salaamaya marwada madaxweyne ku-xigeenka Somaliland marwo Raxma Xaaji waftiga waxa hogaaminaya wasiirka beeraha marwadu waa ka mid caaway hadalkeeda ka dhigatay waxaan leenahay aad baa limaadsantiin cadcadbaa joogtiin waa salaamantiin Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha israacdo Soomaaliland ha la ictiraafo Soomaaliland ha xoogaysato waxaan ku soo dhaweynaynaa imi ku soo dhawa wasiir والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والكورة وحن مدشن كسلام يا مدحوينا جمهورية الصوماليلاند أحمد محمود سلايو ومدحوينا كحياك عبد الرحمن إسماعيل مركحيكا مدحوينا رياء أوضاي شرفت بدلنا maanta si aanan hore uga arkin halkan isugu soo bannaanbaxay iyagoo u dabaaldegaya 18 May oo ah maalintii Somaliland ay la soo noqotay xornimadeeda. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ugu mahadnaqaynaa sida aad u sharafteen maalintan sharafta weyn inagu leh. waxaan leeyahay dadka reer Awdal ha noolaadaan, dadka reer Awdal ha isku duubmaan, dadka reer Awdal ha horumaraan. Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato, ha horumarto. maanta Somaliland iyadaa is aqoonsatay, adduunka oo dhan iyadaa ka samaysay aqoonsi. hala aqoonsado, waa la aqoonsanayaa, hala aqoonsado. innagaa is aqoonsanay, adduunkuna waynu aqoonsanayaa. dadka qorrax baad taagan tihiin, waxa weeye qiyaastiisuna ay fara badan tahay wuu noo soo dhow yahay. waxaan aad